Soo dhawaada qiso la yaab leh oo naga soo gaartay waddanka Hindiya. Waxaa qisadaas ay kasoo jeedaa wiil dhalinyaro oo Hindiya oo duruuf iyo dareen haysata. Sidaa daraaddeed wiilkii dhibaatooyin fara badan tuugsi xanuun daraaddiis waxba ma haysto. Daraaddiis wiilka waxaa loo bogay codkii daraaddiis dadka ayuu qiimeeyey. Wiilkii laamiga ayaa laga soo qaaday samuujadna xanuunkii daraaddiisa la soo kicinaya kabiya loo xirayaa. Xanuun daraaddiis taa kabiya ma xiran kara. Dhacdadan waxay naga soo gaartay dalka Hindiya. Waa ognahay dadkeeda badankooda inay faqiir yihiin. Qofkan waa qof dunida ka niyad dhigay in uu hor u sii socdo, laakiin Ilaahay weyn oo waaxid ayaa faraj khayr qab u furay. Qofkan waa qof xanuunsan, maantana uu joognaa wuxuu soo noqon doono. Kulli codkiisa qof waxaa la arki jiray codkiisa u gadmo. Qofkan aragna suu codkiisa u gadmi doono. Hadda timi ayaa laga hagaajinayaa nolol bilowgeed. Kadibna aragna haddii aad u fikirta sida qofka dheer ama qofka fog noloshaada inay qilqili karto og tahay. Haddana ujeeda heesiis ayaa filmaanta la saaraya noloshiisii mustaqbal dheer kadib markuu kasoo wareegatay timi laga hagaajiyay. Hadda waa kana sida hor u roon. Hadda waxaa la tusayaa heesi uu soo qaaday aktaryaasha isku soo duubay uu la yaaban yahay codkaada maasaan ku gadmi doono isdhahaya. Haddaan aragna uu isla yaaban yahay kaliisa oo qoslaya uu iska joostay oo joodi yarkii daraadii xanuunsanay oo codkiisa soo gadmay. Heerkan iyo maanta taagan yahay nolol raaxa lacag wax ka maqan malaha maanta. Daraatina uu joodi sida daruurta ogaanta haysatay heesaa waaye qoraa waaye laxmiista waaye saaraa waaye noloshiisa intaas bus ayuu ku kaafiyay. Qof walbana waxaan kala talinayaa in nolosha ka niyad dhigin. Maanta waxaad arkaysaa qof dhahaya dunidan wax ay tahay malawalayna iska dhaaf. Qofkan samir uu muujiyay samir dheer kadibna saan ayuu noqday. Nolosha ayaa saas u qaybsan.